dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta Turkida iibiyana farmashi ku yaala gudaha isbitaalka Difa ayaa amar ay siisay gabadh ka mid ah gabdhaha ka howlgala isbitaalka ayaa ka dhiga adeegay waxa ay u dirtay hase yeeshee durbe waxa ay ku dacweeday maamulka sare ee isbitaalka asigoona aad uga xanaaqay dacwada la dacweeyay sameeyayna wax ayna ka filaneen ninkan Turkiga ah waa sida ay sheegtay asigoona ku furay suuli ay ku jirtay markaas gabadhan ayaa si dareen ku jirto waxa ay ku sharaxday waxay dhaxmaray labadooda aniga aad ugu xun aniga shaqaale caafimaad bukaanadan u shaqeynayno dadkeena Soomaaliyeed u shaqeynayno waxa xuquuqdeena in u doodno oo dhibkooda oo marba garab taaganahay nagu xagubo niman ajnabi ah aniga waxaan ahaa gabadh nursing ka shaqeyso isbitaalka Difa gaar ahaan habeenkii shiftiga gasho أنا شفتي كجرا بكاني دو أديجايو وبكاني وأديجايو وح إمادة بكان emergency بكان emergency كان آدي بكان emergency صح اللي هو صلبتي بكاني داود وبهناين أي وحريقي بكاني داود وبهناين إنه سوق تلا ربي ويل كي عبينا وإلى جوجي أقدره نينك وفرمشيه فراي نينك نوحا نين تركيا نينك فرمشيه وكشقيا فرمشيه واحد داول وبهذا أساء سوى عنا مركز أساء سوى الجرنا ويل كمركز أقدره سدح مرة أقدره وكسر ديدين وإمادة ما أفرد كلها من ده كلها من أولنيكاس فرمشيها إنه إمادو وجيده مركو إما واي نينك ماشي جوي ثلاث مسجد أدري يوصل جوا نينك سوا واعي لم يحيل كرو ده هاي نينك المعمول كان واعي ثلاثين كوي قبته وهذا نينك فرمش أنا جالس نسل مركزنا حاضر كمان ماشي وحاجة أرضي براتك إلى شقينا سو يناسبه مسقوشان كجري مركو إيمانا أسوق قيلنا أسوق قيلي حتى مسقوشان كده مقلاي صباح ولا صباح جواد مسقوشة كجرت سوال ده هاي صدق مرة مركز دم مسقوشة وهرانتي وصفرة مسقوشة وهرانتي وصفرة أنا جن وصباح هاي وفرنا وقيلي مصابت أدي ودعوين سمحتها ولا هاي حق ولا عند هاي بكان جيفة بكان كان وينه داوود سهلا مين كان ربح شو يقول فتين وهذا مرة لبد كركي هتابن عند هاي مرة يتابع كرتي حق نومي كركي يتابعت من كان نيك أساس ده هاي عنده في يقول تفه وانا دقائق ماشي وحكون جوكها دتك بكان الجوك ومرقاتك هاين إذا كان ناس كماشي جوجان taasna ani xaq uma leeyin waxaanu ku dhacayna shaqaalaheena Soomaaliyeed xaq uma leeyin ajnabi inuu ay darbaaxo ay aan dhufeeyo aad ugu xumahay mana dhacayso ana ma santin dad fara badan ayaa isweydiinaya su'aasha ah muxuu kala doonay gacantiisa gabadha ninka Turkiga ah iyadoona arintan ay kicin karto dareenka shacabka Soomaaliyeed ma jirto ilaa hadda inuu soo galay ninka geystay dhibaatadan gacanta hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona hadallada qaar ay sheegayaan inuu si xura wali ugu sii shaqeysanayo